qolyahan dadkan aad dulantaan ee Soomaaliya la yasaa wiil kamid oo dhowr iyo 10 jir ah ee 20 jir meelahaas ee islaan ku tuuntay la yaqaano raacadu daaqo ka shaqeysan jirta wadanka yey ku tuuntay inuu qaatay waa loo soo qabtay way gargaraacday wuu inkiray ma arag ma orna kitaab jaamac umar laga dhageysan way garaacday waa la waday waa lagu ciyaaray waa la jugjugeeyay wiilkii waxba sheegi waa haddii wuxuu san qaadin buu sheegaa waxay tir isoo qabtay waa loo soo qabtay geedkan igu xiray geed baa loogu xiray saasa looga dareeray markii intay ku bilbisa gaas bay gubtay waxa loogu yimid lafihiisii xarig iyo biso meesha ku yaala ya mas'uuliyad waxay ku shubtay wax la yaqaan way taariikhda dhacday islaanti baa la yaqaan wiilka la yaqaan Nairobi maanta waxa kula jooga dad hawshaas oo dhan ku xaqiijin kara kismaayo maxaa ka dhici jiray nin miskiin oo ka shaqeysto oo qolyahan xamaaliyiinta nin baa xoog haysta waa inuu maalinka lacag inta keeno dukeeni waayo asagana waa dilhay waa baadaa carruurtuna waa dilhaya markuu maalinka soo shaqeeyo lacagtu kala jabiyaa 80% waxa iska ninka wax baada inta yarna asaga carruurta u qaata maalin buu shaqada wax ku soo bixi waayay ninkii xamaalka ah guriga ma tagan ninkii baa sugahaya kala fadhiya ninkii markuu soo daahay oo 7 saac 5 saac meelaha la gaaro iman waayay buu carruurta intuu tago islaantiisii iyo 5 carruur beddelay خاين maanta uu keenay mashqaayada lagu talagalay uu keenay waay markii ninka dhamaan hay buu carruurtii oo 5 ahayd islaantii bararac 6 boos garab dhigay waxa la og yahay way jilib maxaa ka jiray ee jamaama iyo waa garanaysaa dadka daga ee meesha daga haweenkooda ninka loo soo diray waxa la hebel miyaha gabadha hebla maada qabaha u yeedh waan rabaa waa la fuulahaya nimanka meesha ka taliya baadiriyaasha ee Soomaalida sheegan haya muxuu ahaay waxba daba gali maaye gabadhay u baahdaan farinta waxay soo dhiibahayaan ama ninkeeda ama walaalkeeda ama aabaheed hebel waa lagu rayaa ku raba hebel baa ku raba waa tagaysaa ninkuna farinta waa inuu keeno walaalka farinta keeni gabadha in la soo fuulo aabaha keeni odayga soo gudbin hawlahaasi maanta Soomaaliya waa ka dhamaadeen nin ku dhiiran karo ilxum kugu fiiran karana ma jiro tayib hawshaasi nimankii xaqiijiyay wanaagaas iyo khayrka keenay annaga waan garanaysaa ogaadeena shariif taabto waxaan ku sameeynay shariif taabto wad garanaysaa taabto meesha la qabta u dhaxaysa dooble iyo maxay ahayd afmadow iyo maxay u dhaxaysa dooble iyo qoqaan u dhaxaysa dooble iyo qoqaan u dhaxaysa ma hayn shariif baa dukaan fiican ku lahaa niman ogaadeen oo Mooryaana u yimid shariifkii bay dileen xagga iskaga riixan dukaankiisa bay gateen dukaankiisi buugii deynta la soo qaatay hebel dukaanka shariifku wuxuu ku leedahay soo xareey lacagta ayada yaa xisaabsan haya nimankii Mooryaanta ogaadeen dilay baa xisaabsanaya 6 nin bay ahaayeen ogaadeen oo dhan ay absan waa la fiiri xal lama taaban karo hebel bahal waxa la yiraahdaa dil qaya la yiraahdaa balaayo ku marsatay baa la yiraahdaa hebel baa la yiraahdaa gaashaan baa la yiraahdaa waa jimbo qaba ay jimbo qaba ka carar shariif taabtay dukaankiisa ogaadeen baa la wareegay lacagtiisa deymihii ayaga soo xareeyay xoolo ayaga dhaxlay asagana guri hortiisa ku xawaaleen sheekh xasan turki jazaahullahu khayran baraas kamboni 7 wiil kala soo baxay ogaadeen markay shariifku u cilcin waayeen inta bad wuu laayay khudbu ku dul qabtay shariif taabta haduusan ogaadeen laandheera uusan ka dhalanin laandheera islaam buu ka dhashay buu waqtigiina xabaasha uu hanjabay oo lagu kala tagay hawshan dulmi qoys aan sameyn iyo xadgudub aan qoys aan galin ma jiraan waxaasa Soomaaliya daariya daba ka jiray xamar qoriya waxay ku qorteen meel isbaara ah waman lam yahkum bima anzal Allah fa ulaikum al-kafirun isbaro borku ku dhagamaamay fahkum baynahum bima anzal Allah wa isbarada lagu baadhaado la soc nin meeyda ayaa la oo dileen oo xabaalan isbarada meeshu yaala ma xabaal busta ku wareegsan busta lagu duubay baabuurka meeshu soo istaagay intaas oo kunkeen milyanka bixi iga dhima ninka ka dhima ninkaas aan haysto u tag baldhi ninka u tagi waa toosin waa meydba ninka ma toosahay xalay buu qaadireysnaa oo jaad baad cunaya saaku socday toosi baa lagu dhawaa toosi waa roog dhiig baa ninka socdo waa nin xalay bay dileen adoo aan fariisan ba inta lagu sheegay iyo lama laaba bixinaysa wal carari dad waxaasa ka jiray caalamka oo dhan ka Soomaaliya hawsha nimankii baabashay ee daba galay ee Soomaali simay ee kitaabka Ilaahay ku simay iyaguna cidna ku xadgudbaynin dulanka lagu hayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu muxuu ahaay jawaab degdeg naga siiyo insha Allah ta'ala طيب قصة اللبات وحويان
waxay Soomaalidu dhahaan lillaahi iyo laqdaba meel ma wada maraan lillaahi qof ilaahay iska qaba dartii iskaga socda oo khiyaano aan ku jirin oo hawlihiisu iska toosan yihiin iyo khaa'in ilaahay subxaanahu wa tacaala isku meel ma mariyo oo bimacnaa waxaa laga wadaa labadaa qof isku mid ma noqdaan cidhibtooda dambe iyo meesha u dambeynaysa isku mid ma noqdaan waxaa la sheegaa hadda ka hor 2 nin inay safar soo galeen iyaga oo xoogaa xoola ah wata inaga waad garanaysaan reer baadiyaha dadku ay wada safraan 2 nin dhul oo mana oo aad u dheer oo bahgooyo ah bay soo mareen waxay imaadeen ceel qofka in xarig lagu geliyo haddana xarig lagaga soo bixiyo mooyaane aan la geli karin oo laga soo cabbi karin waana labadooda kaliya ninkii iska lillaahida ahaa ee aan khayaano wadanin baa la hadlay ninka kale wuxuu yidhi walaalow hebelow ceelka gal oo inaga soo waraabi ninka khayaano wataaye wuxuu yidhi maya adugu gal ee inaga soo waraabi waayahay xariga igu xidhbuuri ninkiibuu xariga ku xidhay uu ku sii daayey ceelkiibuu galay ceelkii markuu galay wadaantiibuu biyihii soo daray kii wuu la soo baxay wuu cabbay markuu cabbay la rabay inuu dhaho ninkii soo baxo xarigii u lalmiyo meeshuna ceel dhuuban oo salkiisa baan la arkayn oo aada u fogwey ayuu wuxuu soo qaaday dhagaxa ugu weyn dhagaxyadu soo qaaday suu dhagaxii usoo walwaalahay usoo jiidahay usoo waday ayuu wuxuu keenay ceelkii qarkiis markaasuu ku sii daayey ceelkii markuu ku dhacay ninkii oo dhagax madaxa uu kaga fadhiistay meeluu ka marina ma leh dhagaxii ilaahay wuxuu ooga dhigay uun wax iska jajabahayo xarbubusho oon waxba yeelayn bal isla markaa wuxuu noqday dahab fadhiya ninkii wuu yaabay oo ninku wuxuu kugu soo daadiyey waa maxay buuli dahabkii buu aruursaday maryihiisii buu ka buuxsaday ninkii inuu bixiyuu sugayaa miskiinkiina wuxuu isleeyahay ninkii waa dishay khalaas adiga xoolihiis intaad qaadato iska tag qarina ninka haddii lagu weydiiyana waxaad dhahdaa ma arkin ninkii waan waayey unsaan u wada soconay uu soo kacay isagoo xoogaa yaroo xoola ah wata oo ninkii uu lahaa reerihii buu imaaday laga wada tegay war ninkii hebel ahaa awey hebel waayeyba wuxuu la yaaban yahay dadka ay aamusan yihiin oo muddo la joogo niman kale oo isla maalintii markuu ka soo tegay wax yar kadib bas socoto ah yaa ceelkii imaaday dawliskii ay ku riteen wadaantii ninkana dhex fadhiya war maxaad ahayd yaa ninkii kor taagnaa awey war ooma hayno bal ceelka naga soo waraabi ceelkiibuu ka waraabiyey xarigiibuu soo qabsaday way soo bixiyeen bannaankay keeneen isagoo oo dahabkiisii oo carada ka batay wata ayuu la tegay markuu reerihii oo la tegay oo uu taajir isnacay noqday uu la yaabay ninkii yaa waxaa la yidhi waxaanoo dahaba inteed ka keentay oo hebelow adaaba ii soo daadiyey buui waa ninkii inuu dilo rabay masaas ahaa walaalow saan ku yeelay kaale iyeel buui ceelkii baa dib la isugu soo raacay wuxuu yidhi ceelkan geliye dhagax madaxa igaga sii daa haddii dhagax baa lagu sii daayay halkiibuu ku dhintay bini aadamku marka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u kala dhigay marka lilaahi iyo laqdabo meel ma wada maraanta macnaheedu sidaa weeye waxaa habboon qofku inuu ahaado mid ikhlaas ku shaqeeya oo ilaahay dartii u shaqeeya oo muslimiinta inuu anfaca ka shaqeeya oo muslimiinta dhibka inuu ka ilaaliya ka shaqeeya ilaahayna subxaanahu wa tacaala isaga ayuu badbaadin wuxuu waafajin sida fiican wuxuuna ku hagaajin arrimaha toosan aakhari iyo adduunba sida uu rabo ee u jecel yahay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ooga dhigayaa marka intaasaan qisadana kusoo koobayaa هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قصة نبا والأتاقنا والأتشوغي أنيب تدبغ الله حلقيا ضا ما شفردي إنا قرانيا إنا مبالو تاقي دعاء دا أتكتي وحيكو إلهدين إلهي كعبصر دينتو آية إلهي بو آية صلاة دمتو كذو diintu waxa uu yiraahdaa diintu xaq ma aha saas oo jiray
ducaad baa u tagay waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso ilaahay u toobadkeen waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan waxa uu yidhi dhegaysta waxaad ilaahay baad ugu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa ilaahayna waxaa ku sameeya haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi wallaahi alcadiim waa xaqiiqa waan u jooga anigu waa la argagaxay waa laga baxay meesha musiiba soo socotaa la yidhi inaga saara bili ma soo wareegin wuu iska qoslayey wuu iska ciyaarayey baabuurkiisii buu ka haysta agsidaa buu galay meel kale rabbi kama dilin laftaa dhabarka umaa la kala jebiyey insaankan waa daciif faryarada haddii la kala jebiyey maanta uu leeyahay insaanku uu cabaari laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey qac waa la qaaday yurubtaa la geeyey waa la soo daweeyey laakiin baaradiisii dabcan dhinac baa baktiyey ma kici karayo waa la keenay waddankaa la keenay waxaa la keenay isaga oon qacmaha qaadi karayn lugahana aan qaadi karayn midna aan qaadi karayn farihiis ayaa la keenay waan u tagnay waan u naseexaynay waxaa laga yaabay inuu toobad keeno wuu hadlayaa laakiin ogow mar kaluu ilaahay caayi ilaahay baa iga sareeya qacmihiisa iyo lugihiisaasiba way urayaan lama feliisan karaysid matag waad matagi way urayaan dawooyin baa yurubta laga soo siiyey u mariyaa habeenkii markuu seexdo wax alla waxaa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo maxaanku wax alla waxa jaarka oo dhan meelahaas oo dhan baa ku soo urura xayawaan oo dhan markaasaa qacmihiisan iyo lugaha ma dareemaya isagu waa la cunaa subaxdii markuu toosan buu arkaya intan oo la cunay lugihiisii oo la cunay wuu dhawaaqayaa saasuu u fadhiyaa waa lafihii waxay soo saarayaan lafihii bay soo saarayaan subxaan allah sidaasuu u sugnaa wuu fadhiyaa bes waa la fariisiiyaa waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afka loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saas u fadhiyaa labadii bari uu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saafuura waaweyn dhulax qiyaamidii waa laga soo saaray calooshaa loo fadhiisiiyey subaxdii walba dhakhtarka u yimaada waxbaa lagu dhaadhiciyaa waa laga soo sifeeyaa intaasay laa leegin daloolku waa weyni uma fadhiisan karayo caloosha u jeefaa qurmunka ka baxaya xayawaanka jidhkiisa ku soo ururaya silica uu ku nool yahay waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan muxuu daawanayaa filmaan xun oo anshax xun buu daawanaya caloosha u jeefaa iirooda filimka ajab yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambeysay ayay ku sugnaa silic cuntadii kuma dhaadhici karayso wuxuu sidaa u ku sugnaadaba markii dambe hooyadii uu beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegey gabadhi guriga uma shaqayso gabadhii guriga ka shaqaynaysa way ka tagtay waana tagayaa bay tiri guriga oo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay xataa walaalkii uu ka tegey xataa walaalkii uu ka tegey wuxuu beryi jiray qofka u yimaada walaal iga nax maxaan kuu qabtaa idaldal idil nafta iga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolahay xaaladaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool buu dhegsa maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta maalin dhoweyto haweeney baa isoo wacday in badan bay telefoonka igu soo celcelisay anna mashquul baan ahaa xafiiskaygaan joogay qiso markii dambaan la hadlay
طبعا قفكا iyo magaciisi iyo ma sheegayno annagoo ilaalinayna maaragtay wax badan laakiin qisadu waa qiso xanuun badan waxaan idinku sheegayna waxa weeye waxaan u baahannahay inaan ka taxadarno haweeneydaas waan wada hadalnay telefoonkii bay ula hadashay waxay tiri iyadoo ooyeysa oo xitaa aan hadli karin oo hadalkeeda aan fahmi laahay oo hinta ay ooyeysa darteed yaa waxay ii sheegtay arrin aan aad uga naxay runtii oo shoog igu riday waxay igu tidhi maanta wiil aan dhalay oo 13 jir ah yaa wuxuu ii sheegay inay niman ciyaal suuqiin ah oo superpower iyo wax la mid ah ay isticmaalayeen muddo 7 sano 7 years maba noolaba wiilku dugsiga markuu ka soo baxo jidkay u istaagaan bal dugsigay ugu tagaan iskuulkay ugu tagaan 7 sano bay isticmaalayeen rag waaweyn dhowr iyo 20 jir ah ma noola haweeneydii wax alla waxay samayso ma laha way iska ooyeysaa maxaan sameeyaa bay lahayd ila taliya waxay la qabta wiilku intuu kaxeeyey ayuu wuxuu tusay qaar ka mid ah raggii faaxishada ku sameynayay korka ka tusay waa islii meel kale ma الله مستعان gabadhii haweeneydii ama hooyadii waxay tiri aabihiis hadduu waxaa maqlo suurtagal waxaa horta nimankii inuu dilo oo gacan ula tago oo kow ka siiyo diliba dhiig inuu daadiyo shaki igama jiro inuu dili taa hadday dhacdana waa ka sii daran tahay sheekadu bal xataa wiilkan ka yaabay inuu dilo uu yidhaahdo khalaas kani faa'iidaba ma laha uma sheegi karto odaygii way ka baqaysaa waxay kaloo ku leedahay nimanka haddaad taqaanaan dhib male askar baa loo dhibay waa la xirxiri baan ku yidhi dad askar ahoo ciidan ahoo muslimiina jire ayagaa tii loo sheego nimanka waxaa samaynaya ummadda ha laga qabto ha la xirxiro maya 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 hadday taasi dhacdana qadiyaddii waa la ogaan waa nuceeboobi wiilkayga mustaqbalkiisii iyo qoys ahaan oo dhanba ceeb baa nagu dhicin taana ma rabo inaan sameeyo يعني مجتمع دبك هيستا بان ربا inaan idin sheego yani mujtamaceena dhibka haysta dhib yar ma aha talooyinka aan siiyey waxaa ka mid a dabarorta inay ilaahay subxaana wa tacaala u laabato wiilkana de wiilku markii dambe uu isdhiibeyba carruurtan hadda iskuullada iyo dugsiyada aan geysanayno ma ka warhaynaa xaalkooda ma ka warhaynaa xaalkooda si waan u eedeeyey gabadha waxaan ku yidhi wax 7 sano socda inaad adoo hooyo aa garan weydo horta gaabis baa meeshaa ku jiraan ku yidhi midda koowaad hooyadu door weyn bay leedahay ilmaha dhaqdhaqaaqiisa meeshuu aado jirkiisa wax walba waa inay ogaato laakiin maxayna lagu saliday naagaa guriga ka shaqeeya damba kama laha hooyadii kuwaasaa laga yaaba haddii xataa kuwa yaryarina loo qubaynayo inay u qubeeyaan waxba kama oga dumarku waxba kama oga in badanoo idinka mid a runtaa fiican soo ma هذه مصيبة مسؤولية ضره حابان كل تلي وحكم إذا هرتا ويلكين هالكن لقاك حيو ما دام بيأفا سيدا أي تهاي نمكي لبعتها كوسمين شرين أي شوغان وحيي شكتين الصوماليا كسو تشيدو صوماليا جيبان كوري مش ريلكي كسو تشيدو
bal marka hore ha ka dhex baxo beedan hadduu laakiin tan kusii dhex jiro waxa weeye xataa naftiisu u baqayaa hawshu way soconaysa taladu aabihiina u sheeg baan ku yidhi hadduu rabo ha dile wax laga qarin kara maa wax la qarin kari waxaan la qarin karin baa jira tanoo kale wax la qarin kara ma aha nimankaasna waxba wiil isagu aad iyo ceeb ma laha waa la faraxumeeyey waa la xoogay waa la dhibaateeyey ummadda ha laga qabto carruur dambe oo soomaaliyeed iyo wiilo dambe oo soomaaliyeedna dhibaataynaya nimankaana soo sheeg baan ku yidhi meel baa looga soo hadhiyay almuhiim waxaan iigu sheegaya qisada waxa weeye kulligiin hooyooyin baa tihiin kulligeen aabbayaal baan nahay waxaa markaad maqashay markiiba carruurtaadii baa kugu soo dhacaysa soo maha markiiba kuwaad eedada u ahayd iyo kuwaad habarirta u ahayd baa kugu soo dhacaysa soo maha isjira marka isilaaliya fitnada ka jirta meeshaan wax maskaxda bani aadamka geli kara ma aha wakti uma hayo qiso aad u xanuun badan baan islahaa ka sheekee inan dhallinyara oo si wanaagsan aabbaheedu iyo hooyadeedu soo barbaariyeen ayaa waxaa iskuulkii qur-aankii bay xifdiday waa lagu dadaalay dugsi hoose iyo dhexe iyo sareba way ka baxday ilaa intaa telefon iyo moobil midna may qaadanayn fasalladana xagga horey ka geli jirtay waxay ahayd ardayd xariifada markii ay soo gaadhay marxaladdii jaamacadda ama ay iskuulkii ka takharujtay dee inan weyn bay isu dhigto aabbaheed oo aad u ixtiraamayo oo inantaa aad u jecel ayaa ku yidhi aabbo adigan dee jaamacaddii gelaya maxaad doonaysaayoo waxay ku tihi aabba moobilka ballaadhan ee faraha lagu walaaqo kaasaan rabaa kaa wuu soo iibiyey burkaba bahalka muu filan qisadaasi hargeysay ka dhacday markuu u soo iibiyey nabad iyo caana waxaan ahaynba waa la kala qaadaaye mid kaloo aafaysan ayaa iyadu markiiba arrimo aanay haabka iyo hiyigaba ku haynin tustay oo tiri dee waxaa la soo furtaa internetkii oo halkanaa la galaa oo waa sidan oo waxaa la samaystaa account noocana oo waxaa la samaystaa fasaad buug annagu waxaan u naqaanaa fasaad buug idinku wax kalaa u taqaanaan soo maaha waaye ayaa la samaystaa wixiiba way u wada furtay markiiba mid kale ay garanaysay isku xidhay inankiibaa marba risaalad u soo dira marba wax u soo dira aakhirtaankii waxay gaadhay inuu qalbigeedii meel ku yeesho imarulqays ninkii la odhan jiray shaacirka ahaa ayaa wuxuu yidhi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakkana buu yidhi marka hal inantii ninkii isagoo cala alhawaa ayuu qalbiga meel kaga yeeshay waxay gaadhay inuu ku yidhaahdo soo dir suuradahaaga iyo sawiradaada marba mid bay u dirtaa marba mid bay u dirtaa waxay aakhirkii gaadhay in ay uu ku yidhaahdo sawir xijaabanooyo asturantay markii dambe wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiye horta aduu sawiradan aad ilaa hadda laysma araga garo horta adigu sawiradan aad soo dirtaa inanta dhowrsanaan waxay ka qabto 20 sannadood ama dhowr iyo 10 sano weyn baa lagu soo dadaalayay heer jaamacadeed bay soo gaadhay quraankii bay xifdisanayd horta waxaan ku weydiiyay adigu sawir adeeyada u egtahay un baad noo soo dirtaa maxaad sawir muxuu rabaa muxuu ka jeedaa sawir deetimu qaawin oo de ma garanaysa kuwaynu garanayno inantii markii dambe wuxuu sameeyey sawiradii buu ururiyey wuxuu sameeyey markaa waxaan la yidhaha photoshopka ee la isku hagaajiyo iyadoo qaawin buu ka sameeyey iyadoo sana buu ka sameeyey waa kan wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa intimidation ama cagajuglayn waxaan doonayo haddii aad samayn weydo sawiradaadaasaan baahinaya inantii waxay istiri ceebtaada oo kow og yahay kun looma sheega yidhaahda waxay istiri isagoo ha ku ekaado way u baxday oo way aragtay oo wuxuu ku samaynayey buu ku sameeyey waraabe dhergey baa walaalkii xasuusta waraabuhu wishiiri baa la yidhaahdaa markuu neef helo wuu isu qayshadaa buu yidhaahdaa wuu isu soo ururaa
markuu inantii wuxuu doono ku sameeyey ayuu ku casuumay kuraydii xaafadaha iyo asxaabtiisa inantii way xejin kari weyday problemkii iyo mashaakilkii ilaan cidna uma sheegi kartee balaayadanna ma garanaysee dabadeedna way waalatay way ku dhufatay markay inantii xanuunsatay ee maskaxda xanuunkaasi kaga dhacay ka bacdina way sheekaysay wax walba way ka sheekaysay ninkiibaa ka sheekaysay wax walba ninkiibaa ogaaday dee in reerkii raadinayo xabad lala doondoonayo dabadeedna wuu baxsaday tahriib buu ku dhuftay isagana ilaahay baa qisaasay oo dooni baa kula degtay badweynta hindiya iyo maxaa la yidhahdaa libiya atlantic oceanka ee u dhaxaysa mediterranean seaga ayay kula degtayoo halkaasuu ilaahay ku qisaasay waxay iigu war dambaysay inantii oo xanuunsanaysa oo cilaajyada ku xidhan aafo ma yahay moobil mise maaha ajala ma goyn karaa mise ma goyn karo mindi laba afle ma yahay oo ku gowracaysa idinkaa jawaabahaan idiin dhaafayaa iyo ummadda kale faraha badan waxay culimmadu yidhaahdaan qofka namiimka ah iyo saaxirka waxaa sii daran midka namiimka oo dadka isku dira dabadoolaha maanta dhan uu dabka la wareegayay hebel baasaan yidhi hebel ayaasaan tiri hebel wuxuu ku yidhi ma maqashay oo dadka isku dira sababtu waxa weeye midka saaxirka ah waxa laga yaabaa sixirkiisu hal iyo labo laakiin waxa laga yaabaa kanuu dirala u sameeyey bulshooyin dhan inay isugu halaagsamaan bulshooyin dhan qisay sheegaan ma aqaan inay sugan tahay in kaleeto nin adoon ah oo diralaha dadka aad isugu dira baa ninkii lahaa wuxuu ku talagalay inuu isdhaafiyo suuquu keenay nin baa wuxuu yidhi anaa kaa iibsanaya markaasuu yidhi iga iibso laakiin ogow nin aafaysan weeyaan bi iska ilaali ninkaas waa nin aad dadka isugu dira wuu iibsada kii gurigiisuu geystay suu gurigu u joogay buu ninkii soo iibsaday islaantiisii wuxuu ku yidhi odaygaaga kuma jecla odayga aan ku qabaaye kuma jecla ma rabtaa inuu ku jeclaado say tirahaa markuu seexdo middi inta soo qaadatid iyo sakiin iyo wax la mid ah timaha garka kaga yaalla kuwiisa hoose qaybo ka mid a ka jarjar bay ha ku jeclaanayaa si fiican buu ku jeclaanayaa waaye ayadii go'aankaasay qaato waxay rabtaa odaygadu si fiican u jeclaado odaygiibuu inta u tegay buu wuxuu ku yidhi islaantan guriga kuu joogta nin kale saaxiib la tahay inay nin kale saaxiib la tahay keliyana kuma ekee inay adiga kaa takhallusay rabtaa bi adiga kaa takhallusaysaa bi waxaad ku garan lahaydna waan kuu sheegayaa caawa markaad seexatid indhaha isgelin bi is ilaali waardiye iska qaba bi ayadoo midi la wareegaysa aad arki doontaa bi kow inay kaaga siiso ninka kalena ay aaday rabtaa bi haddama hurda ka soo go'aysa ninka hurda ka soo go'i mayso indhuhu isdaba dhiga qof hurdu iska dhiga hayaa ayadiina waa miskiin raalliyaah waxay rabtaa inay timahan hoose inta ka jarto garka oo hore ka jeclaado ayadoo midi la socota ayay timi garkeeba la soo aaday markaasuu wuxuu sheegay rubadda kugu dhufanaysa intuu ka qabtay buu kow kaga siiyey wuu dilay reerkeedii baa waxay maqleen in gabadhii la dilay inta soo ordayn bay asagiina dileen labadii qabiil baa meeshii dagaal ka bilowday yaa bilaabay diradilaalaa bilaabay soomaalidu waxay yidhahdaan dabkii munaafaq shido muslim baa ku gubta nimanka dhaqankaasu dhaqan xun weeye waxaan ku khatimaynaa qofku markuu yaqiinsan yahay inuu ilaahay aqbalayo waddan ka mid a waddamadan carabta inuu masar ahaa baan weliba filayaa ruux dumara oo waayeela oo islaam waayeeshay ah ayaa waxaa ka xanuunsaday inan oo meel baadiye ah joogta inankii markay meelihii ay la marmari karaysay iyo dhakhtaradii ka agdhowaa ula tagtay waxaa lagu yidhi waxba lagama qaban karayo dhakhtar hebel oo markaa nin caana ah oo la sugo wakhti dheer ayuunbaad ninkaa daweyn kara oo dawadiisa lagula daali doonaa islaantii waxay tidhi way iska allabariday aqalkeedii yaraa bay ku allabariday ilaahay bay weydiisanaysay inuu caafiyo ilmaheeda digtoorkii caanka ahaa
ayaa magaalooyinka yuu marba meel ka tagaayo mid kaluu tagaayo dad baa loogu sii ururiyaa buko oo uu markaa daweynayo ilaahay baa dabiib iyo dawaba leh diyaarad buu qaatay waa nin waqtigiisu daqiiqadihiisu ay xisaabsan yihiin diyaarad buu qaatay ama uu raacay wuxuu tegey magaalo kale wuxuu doonayay markaa inuu ka sii raaco mid kale roob ayaa jawigii isbedelay waxaa la yidhi diyaaraddu ma kici karto muddada intaa leeg waad fadhiyaysaa saacado badan oon isaga kaba go-ayn ummad baa sugaysa go-aan buu qaatay inuu gaari qaato waxbuu xisaabiyey saacadihii dhulka inaad martaa ka dhow buu yidhi dhulkii markay soo socdeen uu gaarigii soo karaystay ayaa roobkii siyaaday waxay noqotay in la istaago waa meel cidlaa oo miyiya buul yaroo meel reer deggan ayaa digtoorkii cajiibka badnaa dantu ku kaliftay inuu halkaas gabaad ka dhigto uu u tegey islaam waayeele baa joogta waxay ku tiri soo soco shaah iyo cabitaan cababay siisay way iswaraysteen uu warramo wuxuu ku yidhi diyaaraddaasaan la soconno wakaasoo karamkii islaamka lagu yaqaanay iyo soo dhoweyntii man kaana yu'minu biاllaah waاlyowmi اlaakhir falyukrim dayfah ayay ku soo dhoweysay dadka carabtu dhaqankaasi dhaqan wanaagsanay lahaayeen buu ahaa yaa dayfana low surtana lawajadtanaa naxnu اطuyuufu waanta rabu اlmanzili waxay gabayadoodii ka mid ahaa martidayadaay haddaadna soo siyaarataan waxaadna arki doontaan annagoo annagu marti noqonnay idinkuna aad ka dhigan tihiin dadkii guryaha lahaa oo kale macnaha saanu idiin soo dhoweynayno aad bay u soo dhoweysay markuu u warramay bay iyaduna u warranto waxay tidhi islaam waa yeeloo inan ka xanuunsanayaana halkaygaasaan ku allabaryaayo waxaa laygu yidhi nin hebel la yidhaahdo oo digtooro cajiiba ayuunba inankaaga kaana dee itaaliya awoodaan ku gaadho waan waaye halkuu ilaahay ugu keenay buulkeedii dhexdiisiibuu ugu keenay isagii baa yidhi ninka laguu sheegayay waa aniga waa ninka martidaead shaaha yar siinaysay oo gurigaaga ku martida ah walaalayaal ilaahay agtiisa waxa yaalla waxa aynu ka sheekaynaynaa iyo aqbalka ilaahay agtiisa yaalla waxa aynu ka sheekaynaynaa waxba kama noqonayaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina aqbalo hadda ka hor ayaan waxaan ka maqlay qiso yaab leh dalkaas sacuudiga aan joognay nin ayaa hooyadiis daaweynaatay ayaa la deganayd marka waxay deganayd guriga fillooyin iyo waxbaa loo dhistaa meel sare oo qol ah oo la seexiyo dadka shaqaalaha ah meesha la seexiyo ayay deganayd hooyadu ninka iyo xaaskiisii carruursiina waxay ku jiraan guriga ku jiraan maalintii dambe ayay meel gaartay way soo noqotay markay soo noqotay waxay aragtay gurigiioo la xiray qolkii ay seexanaysay iyo wiilkeeda xaaskiisiioo meesha taagan oo leh qolka waan u baahannahayoo gabadha shaqaalaha baa noo seexanaysa markaasay ku tiri oo anigu xaggaan aadaya xaggaan seexanaya wallaahi meeshaad aadayso adaa yaqaan ninkiina waa daba taagan yahayoo xaaskiisa gadaasheed u taagan yahay markaasay tiri meesha aadayso adaa yaqaan shandadeediina bannaankaa loo soo dhigay shandadeedii bay qaadatay xaggey aadi waktigaas
reer deriskoodaa bay u tagtay oo albaabka ku garaacday reerkii baa soo dhoweeyey maxaa dhacay saacaddan ku socodsiiyey oo magacaawan idinla baryayaa bay tiri oo waa kaas gabadheedii bay teleefon u dirtay gabadhii baa waxay ku tiri ay tiri mandi ii kaalay oo iga kaxay meeshan gabadhii waxay ku tiri hooy kuma imaan karo oo ninkaygu maalintii dhoweyd oo labada maalmood nala joogtay ayuuba maaragtay qaati bilaahiya taagnaa haddaynan ku imaado ku soo qaado ma ii suurtoobi karto sidii bay kaga tagtay iyaduna oo iyadii meel cidlaa bay ku soo dhacday dadkii marka deriska ahaa iyo dadkii meesha joogay baa dad wanaagsani ku jireen oo qol inta u ijaareen qol dejiyey waxaa saa lagu samaynaya waa hooyo nin kalena wuxuu sheegay nin kale hooyadiis xaaskiisii baa ku taagnaatay weligiinna waad ogtihiinoo waxaa u dhexeeya isqaniin baa u dhexeeya hooyada iyo xaaska haddaan ilaahay u naxariisa gabdhuhuna waa inay ilaahay uga baqaan hooyooyinka ninkan adigu ma aadan soo dhalin uurna ma aadan ku soo qaadin ma aadan soo korin ma aadan soo nuujin markuu dhibka badnaa oo kaadi iyo xaar ahaa ma aadan adigu kuma soo rafaadin isagoo weyn oo barafuun le baad aragtay hooyadiis marka waa inaad ilaahay uga baqdaa oo ilaahay uga cabsataa oo aadan ku dirin oo aadan ka goyn maxaa yeelay hadda adigu saas samayso gabaryahay adigana carruurtaada saa kugu samaynaysa hadaad ninkan hooyadiis iyo aabbiis ka goyso adigana carruurtaada kaa goynaysa gabadhaas waxay samaysay marka waxay tiri hooyadaa baa isixirtay hooyadaa baa maaragtay waxaas iyo waxaas nagu samaysay hooyadiis bay ku taagnaatay islaantiina waxay leedahay war waxaas anigu maanan samayn nin sheekho marka imaam masjiday u yimaadeen oo wuxuu yidhi waxaa ii yimi ninkii iyo walaalkiisoo ka weyn waxay leeyihiin na kala xukun marka islaantiina waa calacalaysaayo duqdii maamadu waxay leedahay war anigu waxaa maanan samayn maanan ku sixrin gabadhii waxay tiri yani wiilka xaaskiisii meel aan kacbada ahayn oo dhaartaada aan ku aqbalaya ma jirto kacbadana gey ha ku dhaarato halka hadday ku dhaarato halkaasaan kaga haray meeshii baa la tegey kacbadii baa la tegey hooyo oo haddana dulman bal ka waran adig waxay noqotay marka meeshii markay ku dhaaratay inay ilaahay u tadarrucdo dulmiga ay ku samaynayaan wiilkeeda iyo xaaskiisa wuxuu leeyahay wiilkii weynaa oo hooyadiis isagu kaxeeyey oo soo celiyey markaanu kacbadii ka soo noqonnay oo aan maamadiina meel aniga soo qaaday gaari soo saaray ninkii iyo walaalkay iyo xaaskiisiina gaari kale ay fuuleen magaaladii kale markaanu nimo soo noqonnay waxaan maqalnay intay jidka soo socdeen in gaarigii la gadoomay meesha ay ku dhinteen waa wiilkii iyo xaaskiisii waa inaad aada uga cabsataa ducada waalidiinta ducadooda waa mustajaab xagga khayrka iyo xagga sharta labadaba waa inaad marka ka digtoonaataa xagga sharta inay kugu duceeyaan ama kugu habaaraan